warqad uu diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ay aragtay mid kamid ah wakaaladaha wararka ee reer galbeedka ayaa waxaa lagu ogaaday in uu u diray nuqulkaasi dalalka reer Afrika ama midowga Afrika isla markaana uu siiyay talo guud iyo sidoo kale halka ay ka taagan tahay qaramada midoobay arinta go'aanka ay la soo baxday Soomaaliya iyo qorshaha ballaaran ee dalka Soomaaliya loo sameeyay xilliga ka saaritaanka ciidamada shisheeye ee ADMIS iyo sidoo kale waxa la yiraahdaa xoojinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wakaalada wararka AFP ayaa Faransiiska ayaa waxay sheegtay inay heshay warqad uu diray madaxa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isla markaana uu u diray golaha midowga Afrika uuna sheegay in ay sida ugu dhaqsaha badan u dadajiyaan fulinta qorshaha Soomaaliya waxaan ku qancay markaan arkay qorshaha Soomaaliya howlgalka AMISOM waxa uu noqon doonaa ayuu yiri gabi ahaanba ADMIS waxa uu sheegay in 30 bishan ay golaha qaramada midoobay intaas ansixi doonaan sidaa daraadeedna wuxuu intaas ku daray in dawladda Soomaaliya lacag caawiyo sidii ciidankeeda loogu wareejin lahaa dalka oo dhan ugu dambeyn dabayaaqada sanadka 23 waa in dalka oo dhan ay ciidanka qaranka Soomaaliya la wareegaan waa in qorshaha la diyaariyaa sanadkan oo dhan wuxuu intaas ku daray in la horkaco ciidamada dalka Soomaaliyeed ee ayagu doonayay inay dalkooda hantaan waxa uu ku tilmaamay in markii uu akhriyay qorshaha guud ee loo yaqaan qorshaha kala guurka ee Soomaaliya u sameysay ama qorshaha kumeelgaarka Soomaaliyeed uu eegyahay ayuu yiri mid farshaxan isla markaana ay Soomaaliya la shirtimid wax lagu qanci karo inta badan dalalka reer galbeedka oo dhan ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay wada taageereen qorshaha kadib markii uu muuqatay ayaa la yiri arinta golaha amaanka waxa uu sheegay inay door bidayaan wuxuu ku tilmaamay qorshahan oo u muuqda mid si tartiib ah loogu dhimayo howlgalka ADMIS hadhowtana isla markaana gabi ahaan bay Soomaaliya la wareegi doonto awoodeeda waxaan ka codsanayaa beesha caalamka inay sii wadaan taageeradooda iyagoo dhaqaale ku filan siinaya ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale in awood gaar ah la siiyo ayuu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadalkaas ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa kii ugu ballaadhnaa ee nin kamid ah qaramada midoobay uu ugu heliyo Soomaalida tan iyo intii Burtis Qaalib uu xilka ka tagay iyadoo markii gureysay ay muuqatay in hanaanka dawladnimada Soomaaliya uu soo noqday arintan dabasha qiimaha leh macna gaar ay sameeyanaysaa كل برامجيداس waxaan ku diyaari doonaa barnaamijka jabcaha falanqeyna badan oo ku jira waxaana macnaheedu sameynaysaa ay tahay dalku marka uu qorshe sameysto ee qorshe uu dad lehna ay yimaadaan cid kasta way ku taageeri kartaa laakiin dad adu qorshe lahayn oo aad lacag urursanaysid oo aadan wax balaan lahayn oo dalka inaad leedahay in kale aan la kala garanaynin oo aad guriga dhis ku jirto oo aad ganacsi iskaga jirto cid ku taageeraysa ma jirto laakiin markay arkaan inaad serious tahay wadankan u soo jeedo oo dawladdu wax qabsanaysa ay taalo waa laga hor leexanaya waayo dalku deemaha dal gumeysi ku jira ma amaral